بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأنتم waxaan jecelahay inaan halkan hambaliyo iyo bogaadin iyo badhaadhe aan u soo gudbiyo bulshaweynta Soomaaliyeed iyo caam ahaan ummadda Islaamka oo ugu hambaliyeeyo bilowgii bisha barakaysan ee soonka Ramadan Kareem وكل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك. waxaa weeye bisha bini'aadamku dadka muuminiinta ee Islaamku Ilaahay u soo qadimay ee sodonkeeda habeenba ay tahay khayraad oo sodonka habeenba dad laga xoreeyo naarta bil loo tartamo cibaadada iyo khayrka iyo samafalka. qofka bini'aadamku uu xisaabtamo 12 bilood hore wuxuu qabanayay oo uu ogaado khasaare iyo faa'iido wixii uu sameeyay kabacdina ku talagalo inuu toobad keen noqdo oo inuu khayr ku bedelo oo miisaankiisa xasanaadka uu kor u qaado bishatan ficilkaas samaysaado uu yahay وجبارمايو كعايو إنay tahay inaad la timaado salaadood badiso tasbiixdood badiso siyaarada dadka eelkood badiso dadka xanuunsan siyaarato dadka jilicsan oo hoos u eegto oo aanad min cirka eegaya oo tirta ku jira oo xiiqsan. waxaan ognay kala hore dad badan oo inala soomay inay maanta aanay joogin oo ay dhinteen oo aniga taariikh weyn soo martay inankaygi murad maxamed cali ilaahay naxariisi jannada ka waraabiyo kala hore bisha Ramadan maalintii bilatay yani hambaliyadu soo diray qosarkii iyo kaftankii wax xusuusta maantana ilaahay dhankiisa u dheelmaday ilaahay khayraasiyo qaar badan baa la mida. waxaa markaa inala haboon inaga fursadii haysana in meetideena u ducayno inaynu dadkeena maaragtay noqono dad deeq xusuusan oo inaguna aynu diyaar u noqono oo inaan noqon camalka khayrka iyo wanaagsan inaynu dib u dhigno. bishan inaynu yarayno xanta iyo dembiga iyo majaalista iyo jaadka iyo dhibaatada badan iyo waqtiga inagaga dilo ee wax dhibam iyo dembi mooyaane akhriin oo kordhaynin weynaan ku xidhnaano masaajida inaynu ku xidhnaano xusuusta meetideena inaynu ku xidhnaano oo had iyo jeer xusuusano geeridu inay dul taagan tahay. qofku intuu geeri xusuusanayo khayr kama tago markuu ilaawana wuxuu dib u eegaa oo waa kibir iyo adduunyada isagoo aakhira u haysta inay ka fog tahay kolkaasi uu yimaadaa mawdku isagoo diyaar u ahayn. laakiin ninka had iyo jeer mawdka xusuusan mar walba wuxuu diyaar u yahay in ilaahay naftiisa anytime uu qabanayo oo markaas sidaa darteed oo khaatimadiisa ilaashado wax maanta mar walba ka fogaado. sanadkan waxaan u boqolay xagga Sacuudiga sidaan bisha barakaysan aan ugu cibaadaysto wax badan baan runtii iga kordhay salaadahaas iyo masaajida aan tagaayo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha iga aqbalo ducooyinka idinkana ha iga aqbalo. waxaan idin leeyahay qofka bini'aadamka qalbigiisa iyo nafsidiisa waxa uu dawaa isagoo ku xirnaada masaajidka iyo kitaabka ilaahay wuxuu noqonayaa qof ku xorooba jacaylka adduunyo wuxuu noqonayaa qof ku xorooba inuu qof is-oosbigo wuxuu noqonayaa qof ku xidhan ilaahay baa saaqda baxsha ilaahay baa manaasibta baxsha ilaahay baa caafimaadka baxsha ilaahay baa nafta qabta ilaahay dunida oo dhan hadday isugu kaa tagto doonayso inay wax ku tarto oo ilaahay aanu doonaynin ay ku tari karaan ma jiro. dunida oo dhan hadday isugu kaa tagto inay wax ku yeesho ilaahay ka raali ka ahayn waxay ku yeeli karaan ma jiro. waxa weeyaan diinteena xijino aynu walaalnimada muujino aynu iscafino aynu iska yarayno maaragtay inaynu ku xilsanaano jacayl adduunyo ee adduunyada inaynu aakhiro u dheelman doono dhaqso aynu ugu diyaar garowno. waxaan idin leeyahay walaalayaal ilaahay ayna la qabto maaha taas inaynu nolosheena adduunyana ilowno. waa xadiiskii rasuulka aakhira ifkana u shaqayso inaanad weligaa dhimanayn aakhirana u shaqayso inaad berri dhimanayso. marka hawsha adduunyada inaynu qabanno oo nolosha kor u qaadno dadkeena iyo ehelkeena iyo nafteena waa waajib weeye oo hay'adaha u garanaysaa waxay tahay jihaadku nafsi inaad gasho oo aad dadaasho way bannaan tahay laakiin inaad ku ilaawdo jihaadkaasi noloshii aakhiro iyo garanaysaa meeshii rasmiga ahay ayaan habboonayn. ilaahay idinkiisa subxaanahu wa ta'aala ilaahay bisha Ramadan ee soo socota ayna gaarsiiyo ilaahay caafimaad ha siiyo inteena xanuunsanaysa
intayna baahna ilaahay subxaana watacaala ka dulqaado faqriga ilaahay quluubteena isku soo hagaajiyo ilaahay muslimka meelo badan baa dagaal ka dhacaya oo rabshada ka taagantay ilaahay dabka ha ka qaboojiyo meel walba ilaahay ha ka qaboojiyo islaamka ilaahay ha tuso xaqa ilaahay ha u dhiibo dad hogaamiyaal cadaalad ku maamula hogaamiyaal u horseeda bashbash iyo barwaaqa adduunyada ah iyo aakhiradooda oo dadka ay tusaan inay diintu tahay shayga ugu weyn ee daaweeya qulubta. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.